Assalaamu calaykum. Si loo dhiso shabakad 5G ah, waxaad u baahan tahay qaab cusub. Waxaad u baahan tahay xarumo shaqo oo badan. Waana inay noqdaan kuwa caqli iyo xeelad badan. Tani waa shirkadda tiknoolajiyadda Shiinaha ee Huawei, taa oo samaysa qalabka ugu horumarsan ee 5G ama jiilka shanaad. Taasi waxay walwal badan ku abuureysaa dowladaha galbeedka. Sidaa darteed, maanta waxaan wax badan ka ogaanaynaa waa kuma Huawei. Xusuusnaaw inaad subscribe saarto channelka, gambaleelkana furato si ay kuu soo gaaraan barnaamijyadeena soo socda. Waxaa laga yaabaa inay halkan kula noqoto Paris, laakiin waa dhismaha cusub ee xarunta dhexe ee shirkadda Huawei ee ku taala Shenzhen, Shiinaha. Waa goob weyn oo shaqaalaha u kala raacaan tareeno. Dhismaha xafiisyada mid kasta oo ka mid ahna waxay u dhisan tahay naqshadda magaalo European ah. Shirkaddan waxaa aasaasay Ren Zhengfei, waxaana la barbardhigaa sida Steve Jobs. Waxa uu shirkadiisa ka soo bilaabay warshad yar ilaa ay maanta ka noqoto shirkad tiknoolajiyad oo caalami ah oo ay ka shaqeeyaan 180,000 oo shaqaale. Cilmi baaris badan oo ay samaysay shirkadda Huawei ayaa keentay in ay sheegato inay ka horeyso in ku dhow 18 bilood shirkad walba oo kale ay soo saarta 5G. Taasi kama koobna oo kaliya helitaanka degdega ah iyo xawaaraha xogta, ee sidoo kale waa inay jirtaa maareynta dhibaatada ka dhalan karta waxqabadka sare. Waa dhibaato ka jirta tiknoolajiyadda mar kasta oo ay ziyaado degdega ama speedka, power badanna la isticmaalo inuu yimaado kulayl badan. Waxaana loo baahan yahay in la horumariyo qalab cusub oo qaboojin kara. Waxay raadinayaan habab kala duwan oo speedka sidiisa ku hayn kara, laakiin kulaylka looga qaboojin karo qalabka. Waxaa halkan lagu tijaabinayaa in la isku dayo in wax walba ahaadaan heerkul dhexdhexaad ah, iyadoo la adeegsanayo kulayl iyo qabow midkii loo baahdo. Huawei waqtigan waxay ku raaxaysanaysaa guulo waaweyn, waxayna sanadii la soo dhaafay soo xareysay dakhli gaaraya $100 bilyan. Laakiin shirkadda ayaa wajahaysa arrimo halis ah. Tan ugu weyn waa dagaalka ganacsiga u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka. We have met the enemy, and it is Huawei, and it is China. Make no doubt about that. You know, right now, Lou, Huawei, through access to unlimited capital from the Chinese government, the communist government, all of this technology, guess what? It's built in for cyber spying, for cyber espionage, because that's what waxaana Mareykanka Huawei ku eedeeyay jaajuusnimo. Sababta ayaa ah in Master Ren, aasaasaha shirkadda Huawei, uu mar ka mid ahaa ciidanka xoreynta dadka Shiinaha. Taasi waxay sii kordhisay shakiga ah in uu xiriir la leeyahay dowladda Shiinaha iyo inay istaageeraan ama iscaawiyaan. Ameerika way ogtahay in Huawei ka mid tahay maamulka Shiinaha. Sanadii 2017, Shiinaha waxay baasgareeyeen sharciga sirdoonka qaranka ka oo faraya in haddii la weydiisto shirkadaha iyo muwaadiniinta Shiinaha ay caawiyaan dowladda si ay u caawiyaan dadaalka sirdoonka qaranka Shiinaha. Waxayna markii dambe ku sheegtay dowladda Shiinaha in ay ilaalinayso ammaankeeda. Laakiin cabsidu waa haddii Huawei ay waddan kale ka hirgeliso adeega 5G in Shiinuhu ka faa'iidaystaan. UK waxay ka fikiraysaa in Huawei ay UK ka hirgeliso adeega 5G. Waxay sirdoonku British ku sameeyeen koox u gaar ah dhibaatooyinka kaga imaada Huawei. Waxaa arrintaa ka waramaya Dr. Ian Levy. Shaqadiisu waa inuu UK ka difaacaa weerarada internetka. Assume the Chinese state wants to attack the UK telecoms networks. Our job is to try and make them work just as hard, regardless of whether we use it. Dad badan waxay ka fikirayaan in dowladda Shiinuhu jeclaan lahayd inay dhageystaan ama u dhacaan xogaha dalal kale. Haddii Huawei ay hirgelisay shabakadda 5G, arrintan ma laga yaabaa inay khatar ku noqoto UK. Sida laga soo xiganayo GCHQ, cabsida sirdoonnada ee dhawaanahan ayaa aad u soo badanaya. Laakiin waxaa jira cabsi kale oo ay habboon tahay in run loo qaato. Marka mustaqbalka kaabiyaasheenna oo dhan, dhaqaalaheena iyo nolosheenna oo dhan ay maamulayaan kombiyuutar midba midka kale ku xiran yahay, ka oo isticmaalaya shabakadda 5G, maxaa dhacaya haddii qof shabakadaas hal mar damiyo? Waxaa laga cabsi qabaa in dowladda Shiinaha ay ka dalban karto Huawei inay dhisto albaab qarsoodi ah
oo qayb gadaale kaga yaala shabakadda 5G network. taa waxay dalal badan ka dhigi doontaa kuwa dayacan oo weeraro xagga internetka kala kulmi kara Shiinaha xilli walba, waxayna noqon kartaa dhibaato weyn. cabsidaas badan awgeed waxay Mareykanku ku cadaadiyeen in shirkadihiisa xiriirka u jaraan Huawei, dagaal dhanka tiknoolajiyadda ahna lala galo. waxaana isbuucyadan maqasheen in Google joojisay wada shaqayntii Huawei, taa oo dhulka gelin karto dhaqaale ahaan, maadaama taleefannada iyo tableedyada Huawei ay ku shaqeeyaan software-ka Android oo ay leedahay shirkadda Google. laakiin war kale ayaa sheegaya in Huawei samaysanayso software u gaar ah oo ay kaga maarmi doonto Android, laakiin way adag tahay inuu tartan la galo Android ama iOS maadaama muddo dheer horumarin ku socotay software-radan caanka ah.